gabdho yaryar inay ku soo codsadaan maadaama wiilku uu ahaa wiil yar oo iska koraya oo dhallin yar in gabdhaha ay soo codsadaan wax qariiba maahan dee wax oo maaragtay lagu farxi karo waa weliba in adoo ciyaartooy oo Soomaaliya guul usoo hoynayo lagu soo dalbado dee wax aad u fiican oo aa gaartay waa darajo u gaaro marka footballku waa macno badan yahay shaqana sideed banaanba waxay ka taqaanaa inay ayada is sheegto shaqada annaga aan soo qabanay waxay noqotay mid ayada is sheegtay noqotay oo hadashay annaga inaan la qayqaylino oo meelaha aan la istaagno waxaa ka fiicneed shaqada aan qabanay muuqaalkeedii oo quruxda badnaay ayada is sheegtay Soomaaliyana maanta waxay haysataa natiijo ay ku faani karto inay koob ku guuleysatay haysataa ciyaartooy haddeertaan ay ku tashan karto oo Soomaaliya oo dhan ay leedahay si sax ah oo aan kala soc lahayn ciyaartooyda loo soo xulay marka aniga waxaan aaminsanahay shaqadii aan qabtay oo youth development-iga ahayd inaan si sax uga soo baxay booskeedina aan dhigay adiga oo qalinlaa laftirkaaga waxaa ka tirsaneed dhalinyarada dadka dhiirigelinayay nala shaqaynayay wacyigelin u sameynayay akhlaaqdooda dhisaya ku jirtay marka annagana kaalintaas oo aa qaadatay mid lamid aan qaadanay waana guuleysanay Soomaaliya oo dhan way guuleysatay ciyaartooydaas Soomaaliyeed ayaga laftirkooda waxay ka yimaadeen youthkii iyo iskuuladii ka yimaadeen taariikhdana meel laga soo bilaabay leedahay oo kubadda cagta meel hoose ka soo bilaabeen iskuuladooda soo mareen degmooyin ay soo mareen ilaa markii dambe ay ilaa ay tagaan finalkii under 17 oo Zakava taariikh fiican ay sameeyeen rikoodii noo ahayd annagana midii ay ayaga soo gaarsiiyeen mid ka duwan aan gaarsiino oo koobkii ayaga ay soo dhaweeyeen aan soo qaadno aniga ahaan waxaan rajeynaa meesha hadda aan joogno meel ka duwan inaan tagno weliba haddeertaan tijaabadii aan galnay waa kasoo gudubnay tijaabo labaad aa noo dhiman oo laftirkeeda qaaradda ahaa noo dhiman haddii aan ka gudubnana World Cup aadayna Soomaaliya oo World Cup dheelaysan insha Allah inaan aragna rajeynaa haddii Ilaahay sida aan usoo diyaar gareyno ciyaartooydii adaabtooda iskuuladii ay ka yimaadeen oo dhiirigelinayeen waalidkii oo daba taagnaay ducooyin badan oo aan ummadda Soomaaliyeed ka helnay horta nagu dhiirisay inaan annagan dhahno sanadkan waxaan soo laabaynaa annagoo koobkii wadno aan soo laabanayna inaan dhahno dhiirigelinta meeshaas ka imaatay marka ducadii dadka Soomaaliyeed na waa ay soo baxday oo koobkii aan waddanka u keeno waxaa soo guulaha oo la gaaray aad horta ugu faraxsanaa waxaana aniga intaas iga sii muhiimsan waxaa wada sheeganaya Soomaaliya oo dhan wada sheeganaysa guushaas la gaaray ciyaartooyda Soomaaliyeedna inay Soomaaliya wada sheegato xaq ay u leeyihiin ani shakhsiyan marka labo arrimood oo aad ii farxad gelinaya ku jirta meeshaas mid waa anigoo ah gudoomiyihii dhalinyarada xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo ciyaartooydan meeshii laga soo xulay asalkeedii aniga ay ahayd iyo dadkii soo xulay oo macallimiinta ahaa iyo xafiiskii aniga aan ka tirsanaa oo aan hogaaminayana uu ahaa xafiiskii soo kala xulaya ciyaartooyda iyo anoo ahaa wafdigii markaas haddana ninkii sii hogaaminaya oo qaabilsanaa arrinkan inaan koobkii Soomaaliya u keeno labadaas dhacdo oo farxad ah aniga laftirkeyga ay kii tahay runtii aadaan ugu riyaaqsanahay anoo hogaaminayo wafdigan inaan koobkii Soomaaliya keeno way iska dhici karaan dee gabdho yaryar inay ku soo codsadaan maadaama wiilku uu ahaa wiil yar oo iska koraya oo dhallin yar in gabdhaha ay soo codsadaan wax qariiba maahan dee wax oo maaragtay lagu farxi karo waa weliba in adoo ciyaartooy oo Soomaaliya guul usoo hoynayo lagu soo dalbado dee wax aad u fiican oo aa gaartay waa darajo u gaaro marka Soomaaliya oo dhan uu rajo geliya Cabdi Xaafid in ciyaartooy Soomaaliya soo dalban karo suuqa kala iibsiga oo ciyaartooy Soomaaliyeed maanta geli karo wax oo annaga waxay nooga dhigan tahay aad u weyn oo farxad gelinaya ka dhigan tahay waa dhiirigelinaya wiilkeena waxaana u rajeynayaa mustaqbal wanaagsan midkan hadda uu haysto mid ka fiican inuu helo Macallin Nuur Amiin horta waa ciyaaryahan weyn oo Soomaaliyeed oo qof kasta ay taqaano ah taariikhdana ciyaartooyda ugu waaweyn oo Soomaaliya kuwooda baalka dahabka u wajo ayuu ka mid yahay taariikh ahaan waxaa la hayaa Nuur Amiin siga uu ciyaartooy inuu final keenay koobkina ay u guuleysteen waa la hayaa maanta asoo macallina inuu haddana marka lagu guuleysto taariikh kale oo labaad oo asiga record u ah oo meel u taalna uu sameeyay runtii Macallin Nuur Amiin waxaan aaminsanahay haddii fursad ka sii fiican uu helo inuu Soomaaliya guulo badan oo wax ka la gaarsiin doono waa nin isku kalsoon waa nin farsamadiisu ay fiican tahay shaqada uu qabanayo daacad ay ka tahay runtii qofka hadduu daacad yahana waxa uu sameynayo oo ikhlaas ay ka tahayna
guulo badan uu soo hoyn karaa oo Soomaaliya dan u ah asigana magac u yeelayso. Gudoomiye Cali Shiine waa ku mahadsan yahay shaqo adag ay qabteen asiga iyo guddigiisa fulinta oo aniga aan ku jiro. Runtii waa nin dhiirigelintiisu aad ay u sarreyso. Dhammaanteenna waxaan ku guuleysanay horta dhiirigelintii uu u wada sameynayay dadka shaqada hayay. Runtii waa shaqsi wax la taaban karo Soomaaliya u soo hooyay. Waa shaqsi runtii Soomaaliya ay ku faani karto. Marka waxaan rajeynayaa in uu asiga iyo intii kaloo meesha soo martay nin walba meel uu keenay. Maanta asna meeshuu keenay meeshii dad kale ay keeneen meel kasii fiican uu gaarsiiyey. Waxaan u rajeynayaa guulo fiican Soomaaliya inuu gaarsiin doono haddii uu leeyahay. Gudoomiyaha waxaan u rajeynayaa horta nasiib wacan aan u rajeynaa. Doorashada sida banaanba haddii aad maqasho waa wax iska furan oo ummadda dhan u dhexeeyo. Ninkii shuruudaha soo buuxsho oo gudoomiyaha la tartami karana uu la tartamaa. Laakiin waxaan u rajeynayaa aniga mustaqbal fiican inuu gudoomiyaha soo socday 4 sano Soomaaliya u noqdona waa u rajeynaa insha Allah.